الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدحية طبناد يا كتاب كان تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله قيبتي مقع أيام كجرنا waxaa kamida waxyaabaha magacaas la xiriira wax kunyo la yidhaha kunyadu waa abu hebel ama ummu hebel waxa la yidhaahdo oo kale marka kunyadaas rasuulka sal alla alay wasalam waxaa xadiis saxiixa ka sugan anas binu maalig uu leeyahay rasuulku wuxuu dadka kan ugu akhlaaq wanaagsan wiil yar baa jiray buu ila dhashay abu cumayr baa la odhan jiray kunyadaas loo sameeyay wiil yar ah rasuulku markuu noo yimaado wuxuu odhan jiray yaa abaa cumayr ma facala nuqayr abaa cumayrow shimbirkaagii muxuu sameeyey anas naftiisa waxaa kunyo looga dhigi jiray abi xamza waagii hore waxaa iska banaan baa qofka xitaa ilmo uusan dhalin in kunyo looga dhigo sida abubakar oo kale abubakar ma dhalin baa layidhi wiil oo bakar la yidhaahda ma dhalin haddana abubakar baa la odhan jiray khaalid bin waliid oo kale abu sulaymaan baa la odhan jiray mana dhalin wiil magacaas le kelimada marka waxaa la yidhaahdo kunyadu waxay tusisaa waxoogaa weynaan iyo qofka ixtiraam carabtu aad bay u qiimeeyaan qofka xitaa magaciisa ma sheegaan abu hebel bay iska xitaa hadayna garanay abu maxamed iyo iska dhahaan waxaa kamid oo kale waxyaabaha magaca la xidhiidha magaca aabbaha ayaa ilmaha loogu magac bixiyaa oo dee waa kan abtirku uu marayo aabbaha hooyada lama raaciyo fulaan ibnu fulaan baa la yidhaahdaa udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah marka ilmuhu hooyadii wuxuu ka raacaa xagga xorriyadda hadday hooyadu xortaa ilmuhu xornimadu ku raacaa hadday addoontahay addoonnimadu ku raacaa aabbahana xagga nasabka iyo magacuu ku raacaa xagga diintana labada waalid midka fiican buu ilmuhu raacaa imaam bukhaari wuxuu wariyey rasuulka sal alla alay wasalam markii loo dhalay wiilkii ibraahim wuxuu yiri waxaa la ii dhalay caawa wiil waxaana u bixiyey ibraahim ayaan u bixiyey waxaa su-aal kale iyaduna imaaneysa in qofka magaca nabiga maxamed sala allahu alay slam loo bixiyo haddana kunyadiisa abuqaasim loo bixiyo abaqaasim iyo maxamed magacaas oo rasuulka ay isku mid labadaba ka yihiin nahyi baa kusoo aroor rasuulku wuxuu magacayga isku magacaaba laakiin kunyadayda ha isku magacaabina taasoo loo badiyey intii rasuulku uu noolaa inaan qofka kunyadii iyo magacii qof maxamed la yidhahda haddana abuqaasim uusan qaadan karin inkastoo laleeyahay way iska banaantahay aimada qaar ay ka doodayaan haddana waxay u badan tahay waagii rasuulka noloshiisii yaa arintaas ku haboon in la yidhaahdo labadaa la iskuma dari jirin waxaa kale oo banaan qofka magac wax ka badan in loo bixiyo iyaduna iska banaan tahay bukhaariya muslim waxaa ku sugan rasuulka sal alla alay wasalam inuu 5 magac u lahaa maxamed baa la odhan jiray axmed baa la odhan jiray abulmaaxi baa la odhan jiray waana midka ilaahay subxaana watacaala maaxi uu ku tirtiray kufriga iyo gaalnimaduu ku tirtiray xaashir baa la odhan jiray wuxuu yidhi waa midka isagana dadka waa lasoo xashirin doonaa calaa qadamay aniga gomadahayga lagu soo xashirin doonaa caaqib baa la odhan jiray waa midka uusan ka dambeynin nabi kale uusan ka dambeynin marka hal magac ka badan waad arteen dadka xitaa qaar hada dhowr magac oo kale la yidhaahdo waxaa soo geli qeybtan magaca waxyaabaha raacsan irtibaatu lismi bilmusama magaca iyo qofka waxbaa ka dhexeeya walidaalika baa la yidhahdaa magac fiican ruuxa ha loo doorto xitaa ha laga bedela hadduu magacun leeyahay waana arintii aan soo marnay qisadii saciid ibn musayib awowgii markuu ku dadaalay magaciisii xusni inuu haysto ama xasnun inuu haysto oo laga bedeli waayo yihi aabbahay baa ii bixiyey rasuulku wuxuu yihi sahal la bax sahal waa wax sahlan laakiin xasan waa wax adag wey wuxuu yihi wiilkiisii awowga uu ahaa xasuunadii weligeed nagama dhammaanin sidaasaanu ku tagnay cumar bin khadaabna waa inay soo marnay ninkii layidhi jamra bin shahaab baa la yidhahdaa dhuxul oo dambaabura dhalay wuxuu yihi reerkiinii wuu gubtay orad ka gaadh buu yidhi magacyadii mura iyo xarbi iyo magacyadana dagaalka tusay colaad hadda inagu aynu la baxnay waxa in la bedelo ayaa loo baahan yahay nin uu xitaa mar uu rasuulku waxaa yihi sal alla alay slam niman uu yihi kaale noolisa hashaan niman wada magac xun sheegtay mura iyo xarbi iyo wuxuu yihi maya ilaa uu nin yaciish la yidhaahdo magacaa fiican muxuu yihi adigu ku soco buu ku yidhi marka ugu dambeynta qeybtan magacyada dadka maalinta qiyaamada waxaa loogu yeeri doonaa aabbayaalkood bukhaari iyo muslimna waxaa ku soconaa qofka dadka ballanta ka baxa isaga oo yowma alqiyaama yurfacu likulli qaadirin liwa yacni dadka ballanta ka baxa
liwaa waa calan babanaya ayaa xaggiisa dambe ka muuqanaya maalinta qiyaamo. markaasaa waxaa la odhan doonaa tani waa ballanka bixi hebel hebel, marka waa fulaan ibnu fulaan hebel hebel tii sidaasa. marka in aabbaha loogu yeeri doono qof walba maalinta qiyaamo ayaa halkaana ka soconaysa. ilaahay subxaanahu watacaala hina badbaadiyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum.